xogayi warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa shaaca ka qaaday inuu xilkii iyo xubinnimadii xisbigaasi iska casilay waxaana sababaha keenay iska casilaadiisaasi uu ku faahfaahiyay waraysi aan la yeelanay maanta oo bisha Afrika way tahay bisha 11aad 2021 runtii waxaan si shakhsi ah u go'aansaday inaan ka baxo guud ahaan xisbiga wadani oo aan muddo kooban tan iyo si aan la socoto waqtigii ololaha doorashada golaha wakiilada baan kamid ahaa dhalinyartii ama dadkii holaday in ay siyaasadda galaan oo ay uga faa'iideystaan marka waqtigii doorashada adigoo la socda ama aad ogtahay runtii inaan muddo dheer ahaa saxafi sidaas darteed muddada waxaan isku gartay saxaafadii inaan ka tago oo aan go'aansaday inaan siyaasadda galo bridge-kii bay ahayd markaa siyaasadda runtii aan ku galayay in aan xisbigaasi iska sharaxo iminkana waxaan ka hayay xil ah inay xogayaha warfaafinta muddadii ka dambeysay waqtigaasi marka maadaama runtii duruufo fara badan muddadii koobneed aan ku jiray xisbigaasi runtii aan dareemay isla markaana aan qiimeeyay kasii mid ahaanshaha hawshaasi runtii in aan maanta soo xiro oo aanan ka mid noqon naan si ahaado xisbigaasi bal markaa runtii go'aansaday maanta si aan wax weyn dhawaan baad ayaad ku beertay xisbiga wadani doorashadii kadib iyo intii doorashada socotay iyo siyaasadaba maxaa sababay inaad muddada intaa leeg aad kaga soo noqoto xisbiga dhawaan ku beertay wallahi horta guud ahaan wad la socotaan xaaladda dalka cabashooyinka faraha badan leh ka taagan in la galo ama in laga shaqeeyo siyaasadda kuwa dibadda joogaana oo dareemaysayo ololaha faraha badan ee wadaan dhaliisha loo soo jeedinayo xisbiyadii in aan xisbiyada lagu geli karayo in laga dhex shaqeeyo ama siyaasadda lagu tababarto ama guul laga gaaro in aan ahayn waan ognahay xisbiyada muddada faraha badan leh iminka ay jireen iyo sida aan ilaa hadda xanaqaadka aanay wahayn marka maadaama ay markii koowaad aan galo muddada waxa iga baxay waxyaabo badan runtii kamida duruufaha kala duwan la sheegayo oo aynu maanta ognahay xisbiyadii qaababka ay u dhisan yihiin in aan ahayn qaab qof mustaqbal siyaasi leh ama qof dhalinyaro oo maanta doonaya in uu nidaam ka baxsan kan iminka xisbiyada ay ku shaqeeyaan uga shaqeeya qodobadaas lugtay maxaa kamid kullu waxa kamid runtii waynu dareemeynaa xisbiyadii waxa jooga dad koox ah oo runtii ay adag tahay runtii in la galo sidoo kale waxa kamid ah nidaamka xisbiyada laftoodu ay u shaqeeyaan haddii noqoto nidaamkooda sharci sidoo kale waynu ognahay maanta axsaabta waxa loogu talagalay in laga baxo qabyaaladda iyo nidaamkan ay Soomaaliland dhibta badan ka tirsato ama Soomaaliba dhibta badan ka tirsato waxaad moodaa axsaabtii in maalinba maanta ka dambaysa ama caqabad kasta oo maanta ka hor imanayso qofka siyaasiga inay tahay mid qabiil taasina runtii waa ta keentay markaa runtii in dad badan marka horena ay u geli waayaan marka ay galaan runtii caqabadaha qayb kamida ay ka noqonayso in qof aan ama sidaad arkaysay maanta soo baxday qof aan dhaqaale haysan oo kale inaanu siyaasadii geli karin oo ragii waaweynaa siyaasiyiinta maanta siyaasadii ay uga hareen xisbiyadii ay weliba hoggaanka ka hayeen duruufo dhaqaale ay kamid yihiin duruufo reer ay kamid yihiin marka la isku daro cumuuman waxyaabaha iga soo baxay aan maanta hayo dooniya runtii kolley waqtigeeda iyo duruufteeda inaan markaa ka warramo nooc kasta uga warrami doonaba in aanay ahayn maadaama aan ahayn mustaqbal dhalinyaro ah oo siyaasadda dooniya mustaqbalka ka galo in meel aan ii qodmaynin ama meel aan mustaqbalkayga dhisaynin aan kasii ahaado mid in aan go'aansan iminka intay waqti dhow yahay isgato dad waxay isweydiinayaan Xuuto muddo aan sanad haynba ku jira siyaasadda iyo xisbiga wadani haddana waa ka iscasilay siyaasaddii miyuu ka fadhiistay mise siyaasaddii uu sii waday xisbiyada kale ee jira ayuu ku beerayaa xaguu mustaqbalkiisa siyaasi ku dambeynaya wallahi waxaan go'aansaday inaan siyaasadda galo wax aniga iga soo go'ay bay ahayd runtii maadaama oo muddo dheer ama iminka lagu geli kara siyaasadda iminka aan joogo markii horena saxafi baan ahaa saxaafadan muddo dheer baan ku soo jiray sidoo kalena
qayb baan kaga jiro dee waan waday marka horeba may ahayn mustaqbalkayga in aan siyaasadda keliya uun ku koobo laakiin in dhinacyada kale dee ama professionalkaygii ama ganacsigaygii qayb bay ka ahayd nolosheeda markaa siyaasadduna inay qayb kasii ahaato runtii baan rajeynayaa aanan inay siyaasadda ka bixin laakiin maaha siyaasaddu xisbi keliya dee axsaabtuna way badan tahay maantana dabaysha socota runtii ah furista ururada iyo axsaabta in dadku meel ay hankooga ka muujin karaan runtii maadaama ay xiran tahay iminka dee tiirarkii keliya dee iminka jira saddexda xisbi maadaama ay xidhan yihiin in qofku uu eegto ama uu hayaankaa kale ee mustaqbalkiisa siyaasiga ku dhisi karo uu wadada u marayo u baahan tahay in laga fikiro runtii baa aan eegi doonaa insha allah muddo dhow insha allah ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in iscasilaada siyaasi maxamuud ay kusoo beegmayso xilli uu fooda inugu soo hayay shirweynihii xisbigaasi iyadoo muddo aan sanad gaadhin uu ku jiro guud ahaanba siyaasadda iyo xisbigaasi inkastoo muddo 6 sano uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja وخضر إسماعيل محمد في الدنبال يبدري وركب مقبهية عالمية سمنيس هرجيسة